بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan u imi halkan inaan ka waramo isdul taago xaaladda dalkeena dibadda iyo gudahaba. marka hore hambalyeynaya xildhibaanada Ingiriiska ee arbacadii dhawata ka dooday arrinta Soomaaliland iyo ictiraafkeeda. uu horkacayay xildhibaanka la yidhaaho Gavin. waxaan si gaaraya u hambalyeynayaa xildhibaanadii gabadha heleyduna asalkeedu reer beri ahaa Bangladesh. arrinta Somaliland xil weyn baa ka saaran dowladda Ingiriiska. dowladda Ingiriiska aad bay noogu daynsan tahay haddaan Somaliland nahay. dagaalkii labaad iyo kii koowaadba waan kula qayb galnay. weli waxaa ahayn geesiyadii Somaliland ee Burma, dagaalkii Burma caanka ku noqday reer Somaliland bay ahaayeen. waxaan leenahay Ingiriiska iyo shacbiga Ingiriiskaba waxaan idinka baahannahay hiil intaa ka badan oon ku koobneen koox MB ah, laakiin shacbiga Ingiriiska oo dhan waan uga baahannahay. waxaan kaloo isna taanideynayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Kite. inkastoonan wasiirka aqoonin oo hadduu halkaa maray aanan garteen, haddana intuu joogayna shaqo fiican buu qabtay. shalayna kelmad fiican buu ku hadlay markuu VOD hadlayey. tii aan ku baaqinay ee haddaan Soomaaliya lala hadal oo wax Soomaali la yidhaah aanay jirin, ay tahay failed state, dowlad guul daraysatay, haddana caan ku noqotay ta ugu musuqmaasuqa adduunka. waa meel lagu cuno lacagta adduunka lagu cuno oo la yidhaha dowlad. waxaan dhisinaa security iyo nation building wax la yidhaha. taasna waxaan leeyahay kuwa imani maayaan Soomaaliya, laanna waxa weeye Soomaaliya waxay kugu habrataa maanta ma jirto. ixtiraam baynu siinay, hawadii baynu siinay, hawadii aynu isku haysanay ayaa wasiiradii markaa joogay aqoon daraantooda ay ku wareejiyeen. walaalada Soomaaliya noogu dhiiba ay dhahay. taas waxay ka markaa taqacaysaa tayada shacbiga reer Soomaaliya siyaasiyiintooda. waxaan jeclahay inaan qoladan xaasidiinta ah wala weynta dee goordhan xaasidiin qaar baa inoo xaasidiin cadow ah. kuwaas waxaan leeyahay kelmad quraan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala kufaarta wuxuu yidhi ku dhinta caradiina. anna waxaan leeyahay ku dhinta xaasidnimadiina. kuwa gudaha jooga inaga ka tirsan iyo kuwa shisheeyahaba. xaasidku waxba inaga qaadi maayo. waxaa daba weeye maalmahan waad arkaysaa ilaa Maraykankii, ilaa scholarskii, ilaa jaraa'idkii waaweynaa Somaliland carabkay ku hayaan. wanaaggaa inoo soo socda iyo iftiinka inoo baxay waxay dowladda muuse ka shaqaysay ma ahae, waa wax shacbiga reer Somaliland ka shaqeeyeen, amba dhiyaas barahaadeen, amba doorashadii maalintii dhaweytay laba saxanbarsanaha ayaa ahayd. hadda waxa weeye waxaan isku mid ahayn sumcaddeena dibadda maanta joogta iyo gudaheena maanta suu yahay. anigu ma geliyo oo si fiican buu sabti uga warramay ballanqaadadii sameeyey muuse uu kaga baxay ummadda Somaliland. laakiin waxaan sheegayaa maanta dalkeenu uu kala daadsan yahay. inta 4 sano muuse fadhiyey dalka wax horumar u keenay waxaan ahayn niyad jab, kala qaybin, qabyaalad, ma wax kale ma jirto. maantana wuxuu wadaa muuse
tii ugu xumeed dalkeena ka dhacday. Muuse Biixi 94kii isagoo wasiirka daaqiliga ayaan la soo hadlay. waxaan yidhi Muusow dagaalka la garaaciyo yaan dagaalka dhinaca Hargeysa Finland ma kala soo hadlay baa telefoon ma jirin boosaatig muu yeelin waa kii dagaalkii weeraray isagoo ogeyn madaxweynaha cigaal Ilaahu naxariistay 500 oo markaa ciidameeyay ayuu isku haleynay wixii ka dhacay dalka waa la ogaa xidal ka dhacay waa la ogaa dalkuna muu degin ilaa madaxweynaha Ilaahu cigaal uu ka qaaday wasiirkii Muuse wuxuu noqday gudoomiyaha xisbiga kulmiye 1916 waxaan Muuse ka barinay war abaar baa jirtay abaar baa jirtay wada aragtaba xoolihii bariga ayaa galbeedka baaro lagu waday aan sanad dib u dhigno doorashada komishiga xafiiskiisa isku qabsan waxaan ku yiri Muuse wiliga 2 jeer baad timi talada dalka mid 94kii baa dagaal baa riday maantana gudoomiyaha noqotay ma laga yaabaa maanta dagaal ridid wakii Ilaahay naga badbaadiyay doorashadii sanad dib u dhignay Muuse sanadkaas oo abaar jirto ayaanu ka barinay isku diri gaadhnay dib sanad loo dhigo oo ah waxa qura uu sheegayo dastuurkeena maanta Muuse wuxuu damcay inuu doorashadii dib u dhigo wuxuu damcay inuu annaga meesha naga saaro labadii xusbi wuxuu Muuse damcsan yahay inuu laba xusbo yar soo saarto oo la tartamo ka helo aanu kursi ka degin ilaa intuu ku dhimanayo Muuse taa ka yeeli mayno waxaanu kaaga yeelin dalka waa la wada leeyahay shahaadad baanu haysanaa 10 sano 10 sano wax la noo siiyeen 2 jeer u oradno warqad baa soo qortay xeerkaasi waa xeer ka soo jeedista horga tiri baarlamaanka u yaala baarlamaanka arinta u dhaaf baan ku leenahay raga soo diririsid ee ku hadlaya sharita u daweey ku hadliyay ana u jawaabi maayo dawaan aqaana qiimahooda iyo waxaan aqaana iyo aqligooda aqaana laakiin aadan kula hadlaya ada wax naga dhaxayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan maanta nabad baan dugsanay oo in Ilaahay ku sugnay farjala qariib allahan yaan Muuse nabad ka ciyaaray doorashadaas inay waqtigeeda ka dhacdo ma ogolaanino waxaan adu geeyin annaguna ma geeyno dastuurka in la jabiyana ma ogolin ururada waqtigii ay baarlamaanku ayimo isoo raacaya 2011 xeerka ah ayaan ku kalsoonahay arintuna wax u taala baarlamaanka Soomaaliland u taala wala laalay xeerkii musuqmaasuqa isku jabiska isku dirka aha 2021 wala ma ka 2011 ayaa lagu shaqeynaya Muuse waxaan ku leeyahay waxaan kula talinayaa Muuse niyada wanaagsan iyo hilmada soo socota ee dalka u soo socotay ummadeena dekadiyo dhamaanaysa insha Allah taala kali doorka oo dhamaanaya alxamdulillah friisoonka la sameeyo alxamdulillah xafiis badan oo ka furiyo maalgash badan oo soo socda ha ka horgeyn wanaaga soo socda muraadkaaga shakhsi on meel mar ahayn waxa magac kugu filan inaad doorashooyinkii qabatay waxa magac kugu filan si aad uga soo horjeeday maalintii cigaal kordhinayay si aad uga soo jeeday maalintii sirriyaal kordhinayay si aad uga soo jeeday maalintan kula ka daawo abaaba jirtay kordh iska diidaysay anigu ma ogolay joog baan ku leeyahay waxaan kugu talinayaa waa talo
ilaahay og subxaana wa tacaala saddex inaan ka heli doona ilaahay og in gaari doonaba subxaana wa tacaala inaan gaari ilaahay og ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunkii een dhaqaale haysan nabadgelyo qura ku naalado ka daaban ku leenay berito way noo imanayaan dadkii naga caawin jiray dhaqaalaha naga caawin jiray doorashooyinka bisha kowdeydii December iyagoo faraxsan oo isku afna bay naga tegeen waxaan kaa codsanayaa maantana inagoo isku afa oo u diyaar garoona intaan bisaga qabsano doorasho wanaagsan madaxweyne inaga tagaan dhaqaalahana ina siiyaan ayaan leeka barina waxaan kaa codsanayaa wadajir ayaynu dalkan wax ku noqon karnaa wadajir ayaan ixtiraam ku heli karnaa wadajir ayaan nabadgelyo ku ilaan karnaa wadajirkii iyo waxaan ku soo caanamay ha ka tegin ayaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay Muuse nasiib baad leedahay maanta waa lagu doortay waana ku taanideynay waxaa lanagu yidhi mucaarid ma jiro time baanu ku siinay hayska recordka hayska xumeen tii maalinteed oo ta dhacdayna adaa sharafteeda leh sharaf maantana sharafta kana ku darsan ku leh waxaan wax ku noqon karnaa inuu dalkeenu socdo ayaan ku noqon karnaa waxaan aad iyo aad u cambaareynayana fararkan soo baxay maalmihii dambe ee la leeyahay dhalinyarada dadka qafaalanaysa dadkii social media waa la ugaarsanaya hadday dhalinyartu isku muuqato oo baasalo isku qaadato nabadgelyada way xumaanaysaa arrintaas waxaan ku leeyahay madaxweynuhu dalka ka daa dhalinyartu yaan isumeyn yaan gaangisar samaysan qolobo xaafad cidda kale ka ilaalisa waxaan kuu sheegayaa oo shacbi Soomaaliya sheegaya hadday dowladda dhici weydo dadkii noo dadaalay ee ka hadlay ee baarlamaanka ee hadda ololaha ku jiray in dad badan keensadaan MPya badani hadday doorasho dhici weydo waxay yidhaaheen dhabarkaa naga toogatay dhabarka waxaan wadnayna halkaas ku baaba'aya waxaa soo socdoo dhan haddaanay doorasho dhicin waa idiin sheegaya Soomaalida waa loo kala tegaya haddaan laynoo kala tegana qasab laynoo kala tegaya madaxweyne ma noqonaysid haddaad ii diidaan aan sharaxoon kula tartamo adna inaad ku sii fadhidid marka mandateeka u dhammaado anna ma ogolaanayo labada xusina ma ogolaanaya taageerayaashana ma ogolaanaya meesha aanu taageerayaasha joogana kama talinaysid haddaanad sharci ku socon saasaan kuu sheegaya ilaah waxaan ka baraya in ilaah aqliga ku soo celiyo ilaah waxaan ku baraya subxaana wa tacaala kii ku guulaysta inuu ilaah kaa dhigo doorashada inaad qabatid oo wanaagga ilaah ku soo tusaan ilaah ka barayna ka bax baan ku leeyahay damac shaksi ka soco danta ummadda horeysi danta ummadda dadkeena gaajoonaya ee baktiyaya in cusbitaal haysan oon biyo haysan oon tacliin haysan waxbarasho haysan boqolkiiba 30 baa maanta Soomaalida taga iskuulada boqolkiiba waa 21 century dadka eeg ha eegan damacaaga damac ummadda mustaqbalkooda eeg baan ku leeyahay saasaan si saaxiibnimo si waayelnimo saasaan ku leeyahay doorashada qabo iyo waa farxsan naga tageen dadka inoo imanaya gamcaan isqabsano doorasho nabadgelyo ilaahay inoo qabto subxaana wa tacaala shalay labada nin hadlayay waxay ku hadlayeen horta waa wax aan loo fadhin bay ku hadleen waxa u muuqata inay go-aankii maxkamadda iska laaleen oo kii maalintii hore ay ku hadlayeen gaarka u ahaa ay ku hadlayeen marka aanu ku xukumayna maadaama madaxweyne official wuxuu ka haynin ku xukumayna laakiin shacabka waxaanu sheegaynaa waxay labada nin shalay ku hadlayeen iska daba hadleen inay tahay wax go-aankii ka baxsan maxkamadda sare ay soo saartay ay ogolaadeen ee anaguna aan ogolaanay badankeeda inay ka baxeen ayaa horta halkaa ka muujinaysa taasna madaxweyne waxaan leenahay dee soo kala cadday haddii la yidhaaho asalaamu calaykum